waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay waanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay waanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno. guul wacan cadowka waabto, nolol wanaagsan iyo barwaaqo, nabad lagu wadaago hakuwaaro. waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay waanada macalinka, waxaan nahay wahdiga dugsiyada, waxaan nahay waanada macalinka. waagii baryaba awbax laga waraabsho, waagii baryaba awbax laga waraabsho, waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta, wadankiina wax u barta, oo xambaaro waajibkiisa, oo xambaaro waajibkiisa. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno. wahsan mayno, waaban mayno, warwareegi mayno, weecan mayno. guul wacan cadowka waabto, nolol wanaagsan iyo barwaaqo, nabad lagu wadaago hakuwaaro wadankeena. guul wacan. salaamay bahda iyo followerska iyo subscriberska dadka ku xiran bahda aqoonyahan academy.
dhammaantiin sidii sidaa la socotaanba waxaa soo dhow dabcan halkan yar waxaa yar introduction ah. Waxaa iska jira ayaamo dhexdaas interruption inuu nagu yimid xagga maarata internetka ku saabsan iyo sidoo kale gudbinta ayadii oo iska dib u dhacday. Hadda haddii la yiraahdo halkan waxaan ka bilaabi doonaa imtixaanka fasalka 12aad grade 12 imtixaankiisa ayaa hadda la gelaya. Marka iyada preparation yar aan ka sameynay waxaa imtixaanadii sida u muuqan doonaan in hordhac baan rabnaa haddii la yiraahdo inaan ka sameyno. Imtixaamada saa la socotaan waxaa soo dhow imtixaankii 12aad fasalka 12aad baa soo dhow. Saa daraadeed waa inaad mar walba aad ku xirnaataan page-kan ama subscribe aad tirahdaan kanaalkan Aqoonyahan Academy si aad ula socotaan barnaamijyada. Gaar ahaan ardayda 12aad fasalka 12aad ee Itoobiya, ardayda dowlad deegaanka Soomaalida inay subscribe badan saaraan weeyaan. Sababtoo ah halkan waxaan ku falanqeynaa aqoonta iyo waxyaalaha academic-ga ee waxbarashada ee laga bilaabo heer jaamacadeed ilaa heer dugsi dhexe. Waxyaalo badan oo gaabis ah baan ugu yimid laakiin hadda casharkeena waxaan u guda geli doonaa casharro badan oo aan soo wadno way jiraan. Laakiin maanta waxaa topic ku saabsan yahay grade 12 examination fasalka 12aad. Saa la socotaan sanadkii hore ardaydu aad bay u daateen oo ardada macnaha aad bay u daateen fasalka 12aad waxaana ugu wacan aqoon yari ugu wacan Soomaalida. Wax ma bartaan ma preparation ma sameeyaan. Taa waxaa ka daran preparation la'aanta. Kuwa badan xitaa imtixaanka gelin iska tagay baa jira. Qaab daradii nidaamkii iyo waxyaalo badan. Imtixaanka jaamacadaha lagu kala gelaya sidii sanadkii hore oo kale jaamacadda Qardahar iyo jaamacadda Jigjiga taas kala noqonaysa. Marka saas lagu kala gelaya. Haddii la yiraahdo saa daraadeed waa inaad la socotaan. Marka waxaa jira qalbiisnaadku laba maado ka kooban yahay ama laba fildi weeyaan. Socialka iyo naturalka. Taas kaa tahayba adaa garanaya. Laakiin naturalka kala haddaan soo qaadano ka kooban yahay naturalka English oo ugu horeeya maths xisaab iyo chemistry biology physics. Waxaa ku sii xiga aptitude maada la yiraahdo oo ardayda fasalka 12aad English xisaab ka kooban tahay. Ugu dambeyn civics oo milkaha qaranka la yiraahdo. Waxyaalahaasi kala dambeynta waxaas waa jawi in aqoon u leh waa English. Marka Englishka biology-ga civics-ka waa akhris iyo ku celi. Okay. Maths-ta waa calculation chemistry waa calculation badankiis. Biology-ga ma ka baxa physics waa calculation tiro isugu jira. Aptitude-ka labada isugu jirta English bayna u badan tahay. Iyo xisaab xoogaa yar fudud. Hadda xisaab English taqaanid tan ku dhimi mayso. Inkasta xoogaa logic ay ku jiro. Somehow logic weeyaan. Marka saa loola socdo loo baahan yahay. English marka laba qaybood uu ka kooban yahay. Mid waa grammar tenses wey grammar haddaa maqashay. Grammar means tenses 12 tenses wey. Iyo sidoo kale basics comprehensive basics waad akhrin waana fahmaysaa.
okay marka waa saas yahay waa inaad marka aad comprehensive marka wuxuu ka kooban yahay laftigiisu dhowr qaybood oo ingiliishka marka qaabkee loo geli doonaa qaabkee bay noqon doontaa see u akhrin doontaa waxyaalaha marka ugu daran waa imtixaanka markaa gashid examination sida Ethiopia examination imtixaan bay qaataa wax kale ma qaato oo khalkhalin si fiican oo nidaamsan oo degan u gal qalabkaagii wata hana soo iloobin scientific calculator scientific xisaabta looga shaqeeyo si lagu ogolyahay ku geli kartaa meesha laakiin wax kale lama baahna waxyaala qaacidooyin baa maskaxda kusoo qabsanaysaa calacashaada ku dhigan kartaa laakiin waraaq lama soo geli kartid qaacidooyinka xifdi inta marka ugu horeysa ingiliishkaas ugu sarreeya ingiliishkana labadaas ka kooban yahay english tennis laba iyo toban tennis waa inaad taqaanaa passageska sida loo fahmo sida loo shaqeeyo waan soo geli doonaa haddii la yidhahdo marka si arrimahaas marbe aad oola socotaan horta channelka saara subscribe la dhaca like-ta saara channelka wuu cusub yahay marka saa daraadeed waa inaad gruubyada iyo share aad tirahdaan sharena dhaha subscribe-na dhaha waxyaala badan baan soo gudbin doonaa haddii la yidhahdo jinisyada loo jeedo briefing baan ku samayn doonaa bas kulliba hal bil kadib baa imtixaan ku dhacaya after 1 month bil kadib ku dhacaya idinkuna waa inaad preparation sanad aad sii samaysaa qaacidooyin kulliba wixii soo akhrin lahaa soo akhrisay inta haddaa wax ku fahmi kartaan waan ugu isku dayayaa maada kasta inaan xun ka taabto waan isla socon doonaa halkaan baa iskala socon doonaa haddii la yidhahdo saa daraadeed sidaas nabadgeliyo